بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وسلم وعبد المجيد بالبسلة meeshaan joogna hadda waa baadiyaha balbuslo waa baadiyaha aan biyaha u dhaaminay waa kan aqalka Soomaaliga iyo reerka Soomaaliga meesha degan yihiin oo biyigu markaas halka muujada banaankaas arkaysaan habeenkii baa la isaga caweeya oo lagu sheegaystaa aqalka la galo lagu haydana waa kan ma sha Allah gogoshaas baa saaran raarkaas iyo dirintaas iyo alaabtaas saas lagu habeeyaa kuleyl iyo waxaas midnaas arkaysaan waxa weeye qabow iska yahay markii la guuriyay isaga baa ranaya urta la saaranaya sida male halkaas la isaga nool yahay raashinkii halkaas lagu karsanayaa qofkii hawl iyo mas'uul iyo waxa u baahda geedaha banaanka uu iska tagaya xilligu rabo kasoo noqonaya halkan waa meeshii raashinka lagu karinayay way saddex dardaaradaas ayaa digsiga la saaraya halkaas digsiga la saaraya dabkan halkaas lagu shiday qofkaan aqoon baan u sheegay dadka badankooda waa yaqaanaan marka aqalkii wakaas iyo deegaanku xaradii arigu wataa halkaas ariga lagu xareeyaa runtii waa nolol maartay qofka ilaahay ku caabudaya waa maartay ilaahay inaan diintiisa garanayo ku tukanaya wixii baa yasanaya shada yari ah markaad fiiriso ariga iska raacanaysa dambi iyo xan iyo magaalo iyo maxaa la yiri iyo wax badan buu qofku ka nasanaya hadda fiireen hadda xilligii nabigu uu sheegay qofku fidnada diintiisa kala carari lahaa oo miyiga iska dagi lahaa oo afartanka ariga uu ku raacdo dambiga magaalada iyo fidnada uu ka fogaado oo halkiisa iska dago ilaahay ku caabudo xilligii in la joogaad moodaa runtiina nolol fiican baa ka jira biyiga qofka ilaahay yaqaan kitaabkiisana yaqaan jahliga un baa daran mooyaane waxa weeye adduunyadu raaxada saasan male dabaqeeda iyo daaraheeda haddaad fiirisid iyo kambaadiyaha degan mid walba waa nool yahay laakiin meesha lagu kala bixi doono waa aakhiro qofka janno ilaahay geeyo qofkaasaa liibaanay adduunka marka waa meel ayaan la joogayo qofka ayaanta uu joogayo cibaadadiisa u buuxan maasha Allah aqalkiina wakaa iyo reerihii dadka qaar baa marka aan kaba warqabin waxa nolosha miyiga ka jira waxaan leenahay bal inaad miyiga timaadaan aragtaan ku noolaataan qofka halka ku koray badanaa waa ka raganimo badan iyo ka dadnimo badan ka adkaysi badan yahay qofka magaalo ku koray oo qabow iyo raaxo iyo baraf iyo ku soo koray waa qofka dhagax iyo kuleyl iyo baadiye iyo xoolo raac iyo hawl buu ku soo koray marka maasha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت عرفت وحوي ولغتني كوذا بيش شعبان كنا في الرفض هجري قوية طبعا كابيش جنوري فبراير لو تكون يو ضد الحين لغتنك